السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقو يازمينا كسور دوادا channel كيغا maanta waxaan rabaa inaan la wadaago qiso dhacday in sheekadan maanta waxay ku saabsan tahay nin iyo naagtiisa iyo labadiisa gabdhood. sheekadan naxdinta leh waxay ka dhacday stateka Colorado. dateku uu yahay August 13th 2018. Nicole saaxiib qaali waxay la ahayd Shannon waxay lahayd doctor's appointment because 15 weeks pregnant bay ahayd. subaxdii hore waxay ku ballameen in ay Nicole geyso Shannon doctor's appointmentiga. Nicole telefonka Shannon bay soo wacday goor badan. text message bay u soo dirtay. Shannon telefonka ka qawan weeday Nicole walwal baa galay, way baxday, gaarigii qaadatay, gurigii waxay aaday guriga Shannon markay timi ilbaabkii ku qaracday ilbaabku waa laga furi waayay. ayadoo guriga qaraacayso bay through the outside window waxay ka aragtay kabihii Shannon oo weli guriga ku dhex jira iyo gaarigii Shannon oo weli guriga ku pargaraysan. Nicole markaas waxay samaysay 911 bay wacday, police bay u yeertay. Nicole? Yes. We were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9. And I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. Shannon waxay dhashay 2 gabdhood. Celeste oo jirta 3 sano iyo Bella oo jirta 4 sano. Nicole markay intaas booliisku sheegtay, booliiskii baxay oo guriga ku warwareegay. How you doing? You seen your neighbors today? No? markuu guriga qof ka waayay buu Nicole wuxuu ku yiri, What's Chris's phone number? Chris waxa la yiraahdaa ninkii Shannon qabay. booliiska Chris markuu wacay wuxuu weydiiyay, Do you have any idea where your wife is? Chris baa marka booliisku wuxuu ku yiri ana guriga u soo socda 5 daqiiqo isii. 5 daqiiqo bacdi Chris markuu guriga Scott, how you doing? How's it going? ibaabiyi u furay. booliiskii Nicole waxay sameeyeen qolalkii soo fiiriyeen, kor aadeen, hoose aadeen. waxa la ogaaday in uu guriga qofna joogin. waxa ka arki kartaa videoga in uu Chris busy ku yahay telefonkiisa intuu raadin lahaa xaaskiisa iyo ciyaalkiisa. booliiskii marka wuxuu dareemay in ay meesha wax ka qaldan tahay. wuxuu bilaabay inuu su'aalo Chris. You guys have any kind of issues, marital issues, or? You are? And how's that going? Civil for the most part, or? Chris marka booliisku wuxuu u sheegay inay ku tala jireen in asaga iyo Shannon rabeen inay kala tagaan. meeshaas waxa ka muuqata in uu rabay inuu dhisto sheeko ah naagtida waxay la carartay ciyaalkayga. Their blanket they sleep with, they don't leave anywhere without them. Good. markii Shannon iyo labadii gabdhood la waayay, booliiska baadi goob u doontay deriska. No. Right. To be completely honest with you, my wife and I were kind of wondering when she was on vacation if something happened, because I've heard them full out screaming at each other at the top of their lungs, and he gets crazy. Does he? And that's pretty recently. He doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. He's normally quiet, real subdued. He's over here telling you 3 times what he took you out. deriska markuu wuxuu u sheegay booliiska in Shannon iyo Chris dagaalkooda badnaayeen. wuxuu kale u sheegay in dabeecadda Chris ay aad u bedelan tahay, ayna ka muuqanin murugo ama nin walwalayo oo ka walwalsan ciyaalkiisa iyo xaaskiisa. deriska wuxuu tusay booliiska CCTV camera oo ku rakibsan banaanka gurigiisa. kaamiradaas marka waxay muujinaysaa Chris oo gaarigiisa wax gelinaya. kaamiradaas also waxay tusaysaa in ay Shannon iyo labada gabdhoodba banaan inuu bixin. soo su'aashii waxay taagan tahay aaway Shannon iyo labadeed gabdhood. So, unless they pulled right here, but I would have caught her walking out. The police department marka shaki weyn baa galay, maadaama Shannon iyo labadii gabdhoodba guriga aan ka bixin xagee aadi karaan. waxa marka laga shakiyay aabihii labadii gabdhood, Chris. asaga marka loo yeeray waxa la yiri police stationka iskaan sida su'aalo loo weydiiyo. Somebody saw something. Somebody knows where these kids are. And I keep saying kids, I'm sorry, the kids in your life. telefonkiisa laga qaaday oo la baaray waxa la ogaaday inuu ku jiid gareynayay Shannon wadnaa kale. waxa kale la ogaaday inuu la jiifanayay nin hooker ah ama prostitute loo yaqaan. markii la weydiiyay wuxuu ku yiri booliiska, I did not cheat on my wife. maadaama uu been badan sheegay, booliiska waxay weydiiyeen inuu qaadan karo lie detector. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. Are you lying about the last time you saw Shanann?
No. Do you know where Shanann is now? No. lie detectorka marka waxaa lagu ogaaday inuu sheegayo been saacada markii laga soo wareegay buu wuxuu qirsay inuu ku soo kacay habeen barkii gabadhiisa oo qaylinaysa qolkeeda markuu galayna wuxuu arkay Shannon oo gabadheeda yarta ah ciijinaysa tii ka weyneedna ee u eg tahay inay dhimatay xanaaq dartiisana uu ku dilay Shannon. Well, no, not her. Your girl. So she killed Lucy Stephen Bell, choked on death. You lost it in the choke her or? That's rage. So what did you do? All the bodies off or something? markaas ka bacdina wuxuu qaaday meedkooda wuxuu ku dhaxriday gaarigiisa wuxuuna u qaatay shaqada wuxuu ka shaqaynayay oil factory marka wuxuu ku yaalaa meel cidla ah oo bannaan u baxsan wuxuu ka bilaabay inuu duugo xaaskiisa Shannon labadii gabdhood oo meed ahna wuxuu ku riday haaman waaweyn oo meesha yaaleen markii la weydiiyey wuxuu saas u sameeyey wuxuu ku jawaabay waxaan ka baqay in aan booliiska waco oo hadhowto ani ila yiraahdo gabdhahaaga dishay wuxuu ku dhaartay in uu gabdhihiisa adduunka ugu jecel yahay una far saari karin. There's nothing in my life that means more to me than these kids. fideoyo wuxuu soo dhigi jiray social media uu tusayo gabdhihiisa inuu aad iyo aad u jecel yahay videoga wuxuu ku tusayaa in gabdhihiisa aabahood jecel yihiin markii booliiska ku qabteen been fara badan baa markii dambe Chris wuxuu qirtay runtana waxay ahayd inuu ceejiyay Shannon haweenkaasi meedkii Shannonna uu ku ritay gaariga labadiisa gabdhood oo noolna uu gaariga ku qaatay oo shaqada geystay labadiisa gabdhoodna uu ku ceejiyay meeshaasi meedkooduna uu ku riday haamanka Shannon uu ku duugay meesha sheekadeena meeshaasi ku eg tahay make sure to hit that like button subscribe and I will share more stories inshallah. Assalamu alaikum. The court absolutely believes that the maximum sentence of 48 years would be appropriate to run consecutive to the other charges, take this defendant into custody and have him serve the rest of his life in the Department of Corrections.